wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta ka gudoomay container ay qalab caafimaad oo kala duwan ay ku jiraan ururka magaciisa loo soo gaabiyo BBS ama Berbera iyo Bariisamaadkii iyo sidoo kale urur lagu magacaabo Some Swedish qalabkan uu wasiirku ku gudoomay dekada weyn ee magaalada Berbera ayaa sidoo kale halkaasi waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo iyaguna ka socday gobolka iyo degmada Berbera ugu horeyn waxa halkaasi hadal ka soo jeediyay Cabdilaahi Cajabo oo ka socday ururka BBS iyo sidoo kale nimco cabdi jaamac yana ka socotay Some Swedish oo ka warmay qalabkan ay wareejinayaan waxaana hadaladoodii kamid ahaa hadaanu nahay Berberiya Bariisamaadkii ururka BBS waxaanu maanta halkan si farxad loogu soo dhaweynaa wasiirka horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku wareejinayno container oo ku jiro qalabka caafimaadku oo kala duwan oo aan rumaysanahay inuu wax badan ka tarayo caafimaadka gobolka gaar ahaan degmada Berbera Bariisamaad ba kharash ka soo bixiyay anaguna qalabka waan ku soo deeqnay kamaanu iibin kii u horeeyayna noqon maayo inshaalla kii u dambeeyayna noqon maayo waxaan uga go'an dhaqaatiirta Soomaaliland oo dhan la saacano ilaa sayla inta ay shayso inaanu qalabayno insha Allah isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil Dr. Bashiir Diiriye Jaamac ayaa isaguna ka warramay qalabka ku jira containerkan ay maanta la wareegayaan iyo ahmiyadda uu leeyahay isbitaalka magaalada Berbera waxaan ballan qaadnaa sida wasiirku noogu adkeeyay inaanu qalabka qiimaha badan leh ku jira aan hore noo soo gaari jirin qalab qiimo badan baa ku jira endoscopy baa ku jira wasiir ultrasound baa ku jira waxyaabahaasi baahi badan baa loo qabay Berbera waliba si gaar ah dadka ugu tababaran baan ahaa farxad gaar ah bay ii tahay mashiinada ku jira inaanu ka faa'iideysano waan ilaashan doonaa hadii alla ka dhigo wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka mahadnaqay deeqdan la soo gaarsiiyay wasaaradda caafimaadka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland marka hore Ilaahay baa mahadle maanta waxaan u mahadnaqayaa hay'adda shaalida Swisscom iyo Burco iyo Berbera iyo Bariisamaadkii BBS oo maanta containerkan ay hor taaganahay ee dawooyinka oo loo siday dawooyinka qalabka ah ee loo siday cusbitaalka Berbera inaan ka gudoomo hay'adaha inta badan ku soo tabcay muddada dheer soo socday waxaan rajaynayaa in cusbitaalka magaalada Berbera oo agaasimihiina uu joogo isuduwihii gobolkana joogo oo ku wareejinaya mftaaxa iyagana in ay alaabta muddada badan soo socotay ee tacabka badan galay ee kharashka badan galay ee bilaashka inuu yimid halka inuu keenay in sidii loogu talagalay loo isticmaalo mas'uuliyiin kala duwan oo iyaguna halkaasi hadalka isaga daba maray ee dhamaantood ba soo dhaweeyay qalabka lagu taageerayo wasaaradda caafimaadka ee ay bulshada Soomaaliland u baahan tahay waxaana sheegeen mas'uuliyiinta ka socotay wasaaradda caafimaadku in containerkan ay ku jiraan qalab ay ka mid yihiin tuumbada gaastarida lagu baaro iyo sidoo kale kombiyuutarada kala duwan ee lagu eego oo ku jirta iyo kuwa qaliinka lagu sameeyo Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera